Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah kaas oo aan uga hadli doono loolanka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha sida ay dhowr jeer tilmaantay majalada Military Watch magazine. Geeska Afrika hadda ma aha oo kaliya gobol ay ka jiraan colaado gudaha ah balse waa xudunta colaadaha caalamiga ee u dhaxeeya quwadaha hadda ka jira sida Mareykanka iyo quwadda soo kacaysa ee Shiinaha. Labada dhinac waxa ay gobolkan u arkaan meel laga xukumi karo lixda marin biyood ee ugu muhiimsan adduunka, gaar ahaan gacanka cadmeed iyo badda cas. aynu ku horeynay dagaalka saldhigga iyo hubka casriga. Military Watch waxa ay si gaar ah diiradda u saartay farqiga u dhaxeeya awoodda military ee labada dhinac ee ku sugan gobolka. Saldhigyada Shiinaha ee Djibouti waa saldhigga kaliya ee Shiinuhu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Military Watch waxa ay sheegtay in Shiinuhu halkaas geeyay habka difaaca cirka ee loo yaqaan HQ-9 kuwaas oo la mid ah S-4 S-300 Ruushka. Tani waxa ay caqabad weyn ku tahay diyaaradaha Mareykanka ee ka kaca saldhigyada ku dhow Camp Leimor. Awoodda cirka ee Mareykanka ayaa geeska Afrika u isticmaalay saldhigyada ugu muhiimsan sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska MQ-9. Military Watch waxa ay tilmaantay in Mareykanka uu hadda casriyeynayo qalabkiisa sirdoonka ee gobolka si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa maraakiibta dagaalka ee Shiinaha ee ku sii kordhaya badweynta Hindiya. Soomaaliya furaha amniga ee marinada biyaha. Soomaaliya waxa ay ku taalla meel istiraatiiji ah oo labada quwadood ay isha ku hayaan falanqaynta. Military Watch waxa ay iftiimisay xakamaynta marinka baabuulmada loo yaqaan. Shiinuhu wuxuu u arkaa Soomaaliya inay tahay gaashaan muhiim u ah ganacsiga weyn ee mara badda. Haddii Mareykanka uu xakameeyo xeebaha Soomaaliya, wuxuu awood u yeelanayaa inuu cunaqabatayn dhinacyo badan saaro ganacsiga Shiinaha xilli kasta oo dagaal uu dilaaco. Military Watch sida ay sheegtay, Shiinaha ayaa hadda dhisaya maraakiib dagaal oo aad casri u ah kuwaas oo Military Watch ay sheegtay in ay ka awood badin karaan maraakiibta Mareykanka ee loo yaqaan All-Right. Geeska Afrika waa meesha ugu horeysa ee maraakiibtan cusub ay ku tijaabin doonaan awoodda ka baxsan xeebaha Shiinaha. Diblomaasiyadda habka iyo tababarka. Military Watch waxa ay si qoto dheer u eegaysaa sida labada dal ay u isticmaalayaan hubka si ay saameyn ugu yeeshaan dowladaha gobolka. Saameynta Shiinaha waxa uu bilaabay in ay dalalka Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto uu soo bandhigo hub tayo leh oo qiimihiisu jaban yahay sida diyaaradaha Wingerka Long loo yaqaan oo la tartami kara kuwa Mareykanka. Tani waxa ay meesha ka saaraysaa ku tiirsanaanta Mareykanka istiraatiijiyadda Mareykanka waxa uu xooga saarayaa tababarka ciidanka oo aqoon sare leh oo loo yaqaan Special Force. Military Watch waxa ay xustay in Mareykanka uu ka walwalsan yahay in qalabka elektarooniga ee Shiinaha ee lagu rakibay kaabayaasha dhaqaalaha Afrika loo isticmaalo in lagu basaaso isgaarsiinta militariga ee Mareykanka.